inaynu albaabada ugu furno si rasmiya معهد الإمام الشاطبي للقراءات والدراسات الإسلامية سيو بلابو هوله سايا شؤون تيسة وغو خدمين ايو كتابك إلهي تبارك وتعالى حوغي هدي اي ندب تاريخ دو ويقنو وحينو أركينا مركز الإمام الشاطبي بعد ربع قرن بالجد والاجتهاد والمساهمة والمشاركة حقق بفضل الله تبارك وتعالى إنجازات عالية حتى خرج بمئات من الأساتذة وآلاف مؤلفة من الطلاب بأسانيد عالية ونازلة بفضل الله تبارك وتعالى كدب مركز الإمام الشاطبي وسوشقي مدكدو ربع قرني إلهي مهدي فضلك إلهي ييدن كيس وحكسوا بحي بقلال معلمين إياكم منان أرضية وسندك للدوان كوهايستا عالي النازل به كوهايستا أنا أبترسانية قفبين توكسوا قالوا مركز كابترسين تيسا تاسنوا بفضل الله تبارك وتعالى وحينان هالمامين إنه إن بدن أدعينه إلهينا خير بدني الرحمات كي سيحفظك سيرى لأنشي سينو قبرنا على مؤسسه الأول فضيلة الشيخ شيخ حسين نور قليل له وإسناها الحائز بجائزة أفضل معلم في العالم الإسلامي سنة 1434 إن لم تخن الذاكرة ومتى تخون كانت بالأمس لكن الآلام كثيرة لذلك قلت إن لم تخن الذاكرة. شيخ حسين نور وين دعينا وحين لا نهاي إلهي نكاب عليه عدي دبد وقتمي عدي لقوا قابسي iyo walaalkeen oo isaguna inooga yimi Yaman aad iyo aadna qirooyinkii u faafinaya dhammaantiin waanu idin ducaynaynaa ilaahayna ha inaga aqbalo waxaan isleeyahay waxyaabaha bariyahan dambe loogu baahi badan yahay ayaa uu ka mid yahay fandhiga halkan loo furayo cilm alqiraa'at waayo barigii hore Soomaalidu quraanka way baran jireen وانا لا حافظي جري لكن waxa inagu yara ama daciif ku ahaa dadka quraanka in loo akhriyo si tajwiidsan oo tajwiidka lagu akhriyo alxamdulillah muddadan dambe 20 sano dambe waxay iska xil saareen dhalinyaradu in quraankii lagu akhriyo si tajwiida oo madaaris casriya loo sameeyo meel fiican lagu dhiganayo معلمكينا يا أرضينا كور لو سوق عضي تسوي ناهر قشي القرآن كي تجويد لقو آخريه بقراءة مجودة وحمر كاردنا أنا وأن دريمي رجع معلمين تقار كودنا هربا أنا أقول تليي إلا بهين هالكا هرا لغسي سعوده وقرآن كتخصص كيسي لسيقرا أولي بقروينكي القراءات وعد الآيات ولا فننا واتروينك آياتها هي عد الآيات كهذا مدينة وقروينك مرك الله بدأ إن لقوا دره دراسة ده رجع هرا وقولت لي ويشران قالوا وحكب لو ذينا ويشران أو مكبا هرجيسك ولا مرك شيخنا هديه هالكن كأساسه وكبر عوي وارهن آد مهمة وأنا أكسنت هنا مسابقات كعالمية من وح الله قبطة حفظ القرآن كي تجويد كيسة من وح الله قبطة قروينك مركوانا السيب وناك سومالي دين إن دتك قاركود السنة كانت على قاركود كقيب قلان وملون أكسنا كقلان قروينك مركوانا أرين آد أي نوسو دوين أي نباهدنا ويتاجنا إذا ويشرتي dhalinyaradi xufaadaha tajwiidka garanaya in halkii ka sii dhaqaaqaan mid 7 qira qaata iyo mid 10 ka qaata labadaba waxa xusid mudan inaanu ahayn fanni sahlan لكنه يحتاج إلى تمكن وتمرس
wuxuu u baahan yahay idqaan badan iyo dadaal badan iyo waqti badan oo loo sabro sidii qur-aanka intoo la xafido uun laga tegayay maaha qur-aanka intoo la xafidaaba qofku gaar iskaga akhrisanaya laakiin hada yaxtaaj ilaa tatbiiq kahiiran wa kahiiran in badan buu u baahan yahay in mucalinka la ag joogo oo la tadbiiqiyo oo carabku si wanaagsan u kala saari kara labada qiro iyo qirooyinka marka ardayda waxaynu ku dhiirigelinaynaa marka hore intooda xufaada ah inay aada uga qayb galaan mucalimiintuna iyagaa usii baahi badan cidda u baahi badan waxa weeye mucalimiinta inay iyagu bilaabaan ragga xufaadiina ku xigaan sidaa loo wada socdo markaa laguna samro oo la joogo muddo dheer laga ag dhowaado mucalimiinta ilaa qofkii ijaazo la siinayo oo loo qirayo inuu qirooyinkii si fiican u kala saaray oo dabcan dee imtixaankii lagu kala saari doono taasaynu aada u baraarujinaynaa waxaa kaloo aynu iyadana aan ku baraarujin lahaa ciddii xataa qur-aanka tafsiirkiisa iyaduna ku howlan inay wax ka qaadato oo had iyo jeer qofka mufasirka ama qur-aanka kariimkaa fasiraya fannigan isaguna wuu u baahan yahay oo waxaa isku xidhan tafsiirkii iyo qiradii iyo tawjiihii qara'a fulaanun kada lihaada sabab sababtan uu akhriyay markaa tawjiihii baa isaguna la socda waa wax iswada furaya iswada qurxinaya iswada macaanaynaya markaa sheekhii qirada dhigaya iyo kii tafsiirka iyo kii tajwiidka iyo kii taxfiidka afartuba way isu baahan yihiin marka waxaan odhan lahaa dadaal weyn ha loo muujiyo waalidkana ha la dareensiiyo qiimaha uu leeyahay qofka ku takhasuso fannigan oo kalena waxaan isleeyahay wuxuu ku heli doonaa insha allahu dee ajrina wuu ku helayaa iyo ilaahay agtiisa uu thawaab kaga helo kalaamkii ilaahay buu kor u qaadayaa oo cilmigiisi kor usoo qaadayaa xataa adduunka haddii la idhaahdana waa meelahaynu u baahannahay rag qirooyinka yaqaano oo jaamacadihii ka dhigo oo imika u yaryihin waa la daydeeya waa taa dabadda laga keenayo markaa rag fawjka u horeeya halkan ka soo baxa jaamacadahay ka dhigi doonaan oo macaahiday ka dhigi doonaan marka halkaana fursad weyn baa ku jirta macad imaam shaatibi oo nagu talagalay in lagu dhigto qiraa'aadka qur-aanka wuxuu u sameynay insha allahu tacaala in 4 sano maaragtay waxa weyn lagaga takharujo biqiraa'ati al-10 insha allah labada sano u horeeya in la qaato qur-aanka tasxiixiisa iyo axkaam tajwiidka iyo qur-aanka muraajacadiisa biru'at xafs la muraajaceeyo oo dabadeedna maaragtay waxa weeyaan عرض القرآن لسمايو وشيخ لقد الأخرى من فاتحة إلى برب الناس لقد الأخرى دبدنا مارتي وحويان إجازتي لقات مركام أنت وحاول راعي مارتي كتب مارتي وحويان كل منهج أنا سمينا بقى وراح راعي دونها دي لا يداه وكنت على لقصان مارتي علوم القرآن كنت على لقصان لبض السنة دنبنا وحويا وحلود وحلو أرض جودي الجروبية inuu maartay ciidat riwaayaat wax ka qaato sanadka hore kitaabka shaatibigana maartay aw xifdiyo kitaabka jazariga iyo maartay tafsiirkana maartay loo raaciyo cilmi rasmigana loo raaciyo ayuu maartay halka sano labada sano ee dambe halka sano ugu horeeya aw ku jiraya sanadka dambana maartay waxa weeyaan qiraa'atu al-10 insha Allah ayuu maartay raacin doona kulli ala hasbi tanziim maartay waxa weeyaan mawaad si loo qaybiyay ama maartay xisaska sida loo qaybiyay nawa u baxayaan duruustu hadii la yiraaho kulli macadka waxaan ugu talagalay in 4 sano gudaheega si loo tartiibiyaba in lagu qaato maartay waxa weeyaan qiraa'atu al-10 lagu qaato ilaahayna maartay waxaan ka barinaa inuu noo taamiyelo insha Allah taala ضيوفتا مارتي waxa weeyaan in aad buu salaamayeen waxa labaadeen maartay in ka hadla aan jeclahay mahadnaq aan maartay aad iyo aad oo mahadnaqayo ilaahayna uga bariyo inuu abaal waaweyn siiyo dadkii maartay mushaarakeeyay dhismahan maartay waxa weeyaan macadka imaam shaatibi oo maanta u fadhina xafladiisa furitaanka dadkii ka qayb galay gudaha iyo dibadda rag iyo dumarba dadkii ka qayb galay ayaan aad iyo aad maartay waxa weyn ugu mahadnaqaya ilaahay maartay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo aakhiri adduunyo Allah ka abaal mariyo awlaadana Allah u hagaajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala aakhirana miisaanka xasanaadka maartay Allah ugu daro Allah ku dhowro ku xifdiyo maartay sadaqaadkii la bixinayo kelmadda iyo maartay waxa wajigooda iyo maalkooda gacay ka sadaqaysteen intaba maartay waxa weeyaan Allah ka abaal mariyo waxa gaar ahaan yaani waxa weeyaan aad u xusaya
dad gaar ah waliba dadaalkooda aad maartay aad u hirsareeyay sida maartay waxa weeyaan basra jirde iyo sheekh cabdiraxmaan suldaanka waxaan ka hormarinayaa sheekh cabdiraxmaan baan ka hormarinayaa sheekh cabdiraxmaan suldaan dhawal oo isaguna maartay waxa weeyaan yani qayb weyn ka qaatay iyo akhuna jamaal dhammaan horta iyo kamaar si gaar ayaanu sii xusayaa haddana waxaan gaar haddana wuxuu sii xusayaa jimciyatul huda ragga ka shaqeeya iyo kuwa culimada ka shaqeysa macallimiinta oo ardaydeeda ahaa iyo kana maartay waxaan juhdiga ay ka galeen mid yar ma ahayn mid aad weyn buu ahaa waxaa kale oo maartay aad iyo aad iyadna maartay gacaweyn oo maartay ballaaran ka geysatay doctor nimco xaaji abubakar iyo maartay intii markii la jirtay ilaahayna walaalaheed u badnaayeen ilaahay ka abaalmariyo waxa kale oo iyadana maartay waxa weyn leyloobi kareynin sheekh xasan khayri iyo maartay macdu zeylac oo iyakuna maartay macallimiinta macdu zeylac oo sheekh xasan khayri hogaaminayo iyakuna juhdi ballaaran maartay waxaan ka geystay dhammaan kuwa hor kolkii asaaskiisii hore intii maartay ka soo geysatay iyo maartay ilaa khitaamkiisii oo ay maartay waxa weeyaan aan gaar ahaan khitaamkiisana maartay aan gaar u si xasuusanahay walaasheen naciima xasan نعيمة حسن نعيمة حسن متان نعيمة حسن متان يا ولاشيد سهرة حسن متان oo iyakuna maartay juhdi badan ka geystay khitaamkii u dambeeyay dhamaantoodba ilaahay ha ka abaalmariyo iyo inta kale ee maartay dibadda naga soo caawisay dalka gudihiisa naga soo caawisay macadka quraanka kariimka lagu dhigayo yaani aad u soo caawisay ilaahay ha ka abaalmariyo dadkaas oo dhan maartay waxa weeyaan insha Allah taala waxaan ilaahay uga bariyaa inuu jannatul firdaws ilaahay dajiyo fi qasr mushayyada في قصور مشيدة إلهي دجيو إلهي سبحانه وتعالى وهري صدقات كودا هرا وقدق مالت قيامها مارتي وحوين هولك يدباتو تاغنتهي إلهي نرى لها جيسها أسيو دمانتين إلهي مارتي هنو نحريستو وسوكي نحريستو هنو دمي دافو مجمعيان مارتي انجوغنو الله سوكي نحريستو سوكي دمي دافو إلهي مارتي وحوين مجمع مرحومة معصومة إلهي كدق من بعد تفرقنا والآن أرحب فضيلة الشيخ محمد يحيى الأهدل مدرس القراءات في جامعة القرن فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبارك للشيخ حسين نور قليله افتتاح هذا المعهد المبارك، معهد الإمام الشاطبي للقراءات والدراسات الإسلامية. كما أبارك لجميع هذا البلد افتتاح هذا المركز المبارك الذي سيعود نفعه إن شاء الله تعالى على الجميع. فهذا هو معهدكم جميعا، الكل سيستفيد منه علما، والكل سيصحح فيه تلاوة، والكل سيتلقى منه فوائدا. لذلك يحق لي أن أهنئ الجميع بافتتاح هذا المركز المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله منارة علم وتقى وفهم. لا شك أن افتتاح مثل هذه المعاهد المتخصصة لتعليم القرآن الكريم أمر في غاية الأهمية. waxa kale oo aan u mahadnaqaynaa dadka ka soo qayb galay xafladan oo sharafta badan oo kamid yahay al-akh Sheikh Ahdal oo safar dheer noo soo galay oo kamid yahay culimada kale ee soo booqatay oo Sheikh Maxamed Umar Tirir oo kamid yahay iyo culimada kale ee garab socotayba aad iyo aad bayaguna ay u mahadsan yihiin runtii. xafladan kollayba waxa weeyaan dawal la qaban jiray xaflada quraan madrasada badan baan furi jirnay, laakiin waxay kaga duwan tahay tani. waad ogtihiin oo madrasadan madrasadii ugu horeysay ee quraan lagu xifdiyo yani quraanka tajwiidkiisa lagu barto ayay ahayd madrasada sheekhu. quraanka madrasa magaalada ka socda iyo madrasadaha quraanka lagu xifdiyo aad iyo aad bay u tiro badan yihiin.
dadka qur-aanka bartay ee macalimiinta ah ee meelaha kala tegay ee daafaha adduunka iyo wadanka gudihiisaba aad bay u tiro badan yihiin laakiin baryahanba waxaa la dareensanaa qur-aankii haddii la itqaaniyey oo qiraa'adii xafsada iyo la bartay waxaa loo baahan yahay in qiraa'aadkii looga gudbo oo si fiican iyadana muxuu ahaa loo makansado aad iyo aad buu marka sheekhu in badan ugu welweliyey waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa maanta in ilaahay arrintii suurtogeliyey oo maanta la iclaaminayo machadkii qiraa'aadka qur-aanka lagu baranayey oo ka mid ah markaskii imaamu shaatibi yacni ka farcamay oo ah machadu qiraa'aati alqur'aani alkariim oo lilimaam shaatibi magacii wata waa ilaahay subxaana wa tacaala mahadii wey waxaa maanta inoo suurtagalay markaa taa furitaankeeda sheekhu aad buu uga hadlay qiraa'aadkuna sida uu sheekhu uga hadlay sheekh ahdal xafidahullah aad iyo aad buu arrintaa u baraarujiyey runtii waxba kagama tegin qur-aanku wuxuu u baahan yahay talaqi buu u baahan yahay cid laga qaato ayuu u baahan yahay sida rasuulkuba sala allahu caleyh wasalam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama oo markaa barta qofka barta baa layidhi qofka barta qur-aankii waad ogtihiinoo rasmiga qur-aanku qaab gaar u qoran yahay imlaha caadiga ah ee luqada carabigaa sida loo imleeyo iyo qur-aanku siduu u qoran yahay aad bay u kala duwan tahay waa wax sidiisa loo xifdiyo oo sidiisa loo raaco rasmiga qur-aanka inaad ka dudo maaha meelo badan oo imlaha caadigaa si loo qoro ayaa qur-aankuna si kale u qoran yahay wuxuu u baahan yahay marka macallin inaad ka qaadato wax la bowsan kara maaha looxjiid lagu baran kara maaha wax la iska qiyaasi kara maaha marka ay noqoto qiraa'aad marka ay noqotona wayba kasii daran tahay waxaan leenahay marka fursad weyn baa maanta inoo furantay oo aad iyo aad u qaali ah marka la yidhaahdo maalan gobolkeenan awdal gaar ahaan magaalada bowrama iyo guud ahaanba wadanka oo dhan guda iyo dibadba waayo machadka maanta waxaa loo furay ma aha reer bowrama oo keliya laakiin iclaanku waxa weyn waa iclaan guud kolba sida wax loo qaadanayo iyo jadwalka iyo sida wax loo habaynayana sheekha ayaa soo gudbin doona insha allahu tacaala waxaa qaybaha markaa sheekhu machadka ugu talagalay tahay qaybi waxa weeyaan waa tasxiix dad badanoo qur-aanka bartay baa jira qur-aanka xifdiyey laakiin waxa weeyaan iska belbeleeyey oo qur-aankii iska xifdiyey ama macallin ana waxoogaa aan si fiican qur-aanka tajwiidintiisa aan u makansan aw baray haddaad laxni qur-aankii ku baratana waa ceeb wey weliba aad noqoto macallin oo macallinnimo haddana aad isku soo bandhigto aad iyo aad bay arrintaasi u badan tahay xufaaddu way badan tahay dadka qur-aanka xifdiya aad bay u tiro badan yihiin laakiin inta qur-aanka si fiican u itqaanisay ee si wanaagsan u tajwiidinaysa ee qur-aanka xaqiisa siinaysa aad iyo aad bay u yar tahay waxaa haddaba fursada runtii ama macallimiin ha ahaadaan ama arday ha ahaadaan qur-aanka si fiican u bartee qaybi waa qaybta tasxiixa wey waana qaybta ugu muhiimsan wey qiraa'o ma baran kartid haddaanad qur-aankii carabkaagii haddaanad sixin tajwiidkii haddaanad hagaajin cala al aqal qiraa'o keli haddaanad carabkaaga ku toosinin sida xafsadoo kale ama qiraa'atu abi camr haddaanad carabkaaga si fiican ugu toosinin tajwiid ahaan iyo axkaan ahaanba dee qiraa'aad kale u gudbi maysid marka fursadda horta furani waxa weeye ma aha keliya arday caadiya inuu furanta macallimiinta u furanta waxaan macallimiinta ugu baaqaynaa madrasadaha dhiga macallimiinta muxuu ahaa u anbabaxay qur-aanka inay dhigaan wax ka dhiman yihiin waxa ka dhiman inay buuxsadaan qolooyinka ay u saxsan yahay qur-aanku fursaddaa horay uga faa'iidaystay sheekha uga faa'iidaystay oo horay ijaasada loo siiyey waxaa iyagana u furan qiraa'aadkii in loo bilaabo sheekhu marka si toosa ayuu u bilaabayaa arrintaana go-aan buu ku qaatay waxa kaloo runtii bishaaro ah waxay noo soo socda macallin reer boorama ah oo ku takhasusay qiraa'aadka qur-aanka 10 qiraa'aba soo bartay oo masar ka imanaya waa inaan dhalinyarteeniya halkii qof kale meel laga keeni lahaa ilaahay subxaana wa tacaala fursadaas buu ina siiyey dhowr bilood kadib buu inankaas imanaya qiraa'aadka qur-aankana culimadii ugu sarraysay caalamka oo dhan qiraa'aadka ayuu ka qaatay ijaasadii buu soo qaadanaya masar meelaha ugu wanaagsan bay ka mid tahay tajwiidka iyo qur-aanka ugu wanaagsan ayay ka mid tahay way noo imanayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala markaskan in dibad iyo gudaba looga yimaado oo uu noqdo markaska ugu caansan ee ugu caalamisan inuu noqdo insha allahu tacaala
sida macallinka aasaasay baa uu noqday axsanu mucallimin fil caalam uu noqday oo jaayisadiisii markaa ay halkaa ay ku taallo fursadda noocaas oo kale haddii laga faa'iidaysan waayo oo la garab geli waayo oon isgarab taagi weyno oo maskax iyo maal iyo muruq baan ku bixin weyno waxay noqonaysaa runtii dayacaad bay noqonaysaa waxaanan isleeyahay fursadda noocan oo kale hadday dadka qaarkood heli lahaayeen madaxay ku qaadan lahaayeen meel sarena runtii way gaadhsiin lahaayeen marka dhallinyarta qur-aanka ku mashquulsan gaar ahaan yacni macallimiinta iyo kuwa qur-aanka xifdiya da'yarta ah waxaan leeyahay fursadda ha laga faa'iidaystaan leh si buuxda loola istaajiyo loolana dhaqaajiyo dee maanta waa furitaan weeye caqalkii baa dhammaystiran laakiin hadday qalabayn tahay iyo haddii magaranaysaay arday ay tahayba qof walba halkii kuga beegan yahay inuu maxadka inuu hawsha iyadaa isu barbartaago taa aad iyo aad baan dadka ugu bogaadinaya dadkii hore uga qayb galay waxaan leeyahay naqii ugu dambeeya inii hadhae hawsha iyadaa dhammaystira inta kale maqlaysana marka hore aan filayna ee khayrka jecelna waxaan ugu yeedhaynaa ama aan ku boorinaynaa iyaguna inay si qaymo leh uga soo qayb galaan inta hadhay waxa weeyaan taana waxaan takaleen aad iyo aad u boorinaya waxa weeye ama isku dultaagayaa in bal qof walba sahaydii uu sitay jeebka uu ku sitay maanta uu sitay ee qur-aanka ahayd ama qiraa'adiisa ahaydna inuu dib maanta hadduu u helay maanta meel gaaban hadduu ka helay inuu isaguna dib uu jeegareeyo iskana soo xaadiriyaan iyo aad iyo aad iyo aad arrintan aad baan ayaan u taageersanahay war kale ma jiro waxaan leeyahay hun ilaahay haynagu anfaco ilaahay kuwa ka soo baxayaan han ku anfaco ilaahay dalka iyo dadkana magaranaysa meeshay ku xasiil lahayd allah inooga dhigo nin walbana garashadiisa iyo tabartiisana ha kaga qayb qaato wabilaahi tawfiiq qofku marka uu yahay ilaahay uu ku xidhan yahay isaga uun iyo ilaahayna soo gihiin dadku ma fahamtaan sheekh xuseen in badan maana joogaano maba mooday kitaabka qur-aanka u yar akhriyo maanu arkayay dadko tajwiidna runta markaan wada hadlayo sidaan baa loo yara wada arkayo dee nin mutakabira ma ahayno nin ummadda ku dhex jiro oo yaroo uunbuu iska aha de ilaahayba markaa kor u qaaday soo kor iskuma qaaday ilaahayba kor u qaaday uu dadaalay iyo dadaalkiisa anuu waxaan soo gaabnay dad badan mayna jooga waxa weeyaan meel la iskugu yimaado meelihii ugu qurux badnayd marka laga yimaado maka iyo saddex masjid marka laga yimaado wax islaam iskugu yimaado waxay ugu qurux badnayd baan iskugu nimid waana markii ugu horeysay ayaan moogtahay anuu ilaa muxuu ahaayey sayda ayaan maalin ayaan tagay oon ka qayb galay marka waxa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nin walba waxbuu ilaahay kor ugu qaadaa markaa sheekha horta waan ducaynaynaa ilaahay caafimaad ha siiyo cimri dheerna ilaahay ha siiyo caqiidadiisa ilaahay kor ha usii qaado ayaa leenahay in laga wada faa'iidaysto ubadadeenu ka faa'iidaystaan ani inantaydii horeysay madrasada waa ka qalin jabisay xifd alquraankii bay dhammaysay wax ilaahay loogu xamdi weeyo oo ragga dirtaba dhinameeyay baan ka mid ahay caanaha muutay marka la wareejinayo la cabayo la wadaagayo kanaa ka bano alla intii ka batay baan ka mid ahay yaa ka mid marka gudahaan waxaan leeyahay وأن دعينا أنت حكمت إلهي سبحانه وتعالى قلبي جينا هو ذكي آمين يعني واحد كلمة إلهي قلبي جينا حق ليه وبد كنا أي نكود ذلو يا أنا بدك تدي بداية يرجونا كل كا وقت كي مركز شغال بكرة ما تريها بدي كلمة ده أنت اللي كنا الله بدك تقول كنت وحلا مركز موت شغال مركز كذا ما سو ما عليه ده إنجليز كأوفري في سيدا إن لسيو نيكي عروتي سلوية تبنجري وحي كهوسيا يا الله فري وإن صدح كونه $1 هايستو بس انت سأله ويعني أنا مرقا ونسكسو دقاقيو وحا مركا سأله عروتي حكيت كعلم صوماليات كعلم مبدالعي ذا يسمي أنا ذلكي بسم الله والله يرياب وحنقول ما ندبور مركا كيمان هاي هم بايرو شراق قواري ذا لقا ترى هالكيسي كي يجري أيان ستي laba su'aaliyo laba shaaro yariir gobay ku jiray marka wax kale oo haystana ma jiro marka maanta ilaahay awlaadna uu siiyay alxamdulillah wax ilaahay loogu xamdino shilin iyo waan haystaan maanta caruurta ugu shaqeeyo marka meel ay ku dhirgaan oo ina ilaahay iyo waalid ku garanay meel ay ku gaajoodaan
oy ilaahay iyo waalid ku yaqaan ay ku garanayaan ayaan ka doortay xablul matiinkiina weeyaan subxaanahu wa tacaala biyadi raxmaan buu waxa libana ku jira iba hoojin maayo ilaahay isagaa isku xiro anu halkii baa ku noqon sidaasaan soo marka inta kala mawtaa la joogo waxa weeye nin waliba isagu ku leeyahay meeshiisa meel dibada waxba ku marka diintana isaynu ku yeelanayna aynu ku dadaalo ubadkeena iyo nafteena gurigeena ka soo bilaabno mar walba hadalka hooyada loo baahan yahay waxaan u sheegayaa ummadda reer Boorama iyo ummadda muslimka ah ee khayrka jecel garanaysana afkaan ku hadlayno waxaan u maleynayaa Sheekh Ibraahim baa Carabigii dhameeyay sheekheena Carabkeena la joogana kulli isaga u macnayn doona biidni Raxmaan laakiin waxaan sheegayaa wax walo lagu riyoodo mar walba intaan idin la joogay dhalinyarta waxaan ku yiraahdo hooyo iska riyooda riyadu waa shay aad loogu baahan yahay insaanku markuu riyoodo ayuu wax rumayn karaa laakiin hadduu riyoonba waayo waxa weeyaan waxba ma qabsan karo macadkan wuxuu ahaa inta anigu aan Boorama idinla joogay macadkii iigu adkaa ee aan 3 goor program ka duubay buu ahaa 3 maraad baan ka duubnay markii uu horeysay waana loo jawaabi waayay anagoo Tawfiiq iyo Nuur al-Ilmi ama Nuur al-Islam iyaga laba magac la baxay waan ku celinay haddana ma niyad jabin markii naloo jawaabi waayay ma niyad jabin mar labaad baan ku celinay waana loo jawaabi waayay haddana mar saddexaad baan ku celinay alxamdulilaahi rabbil caalamiin mar saddexaadkii uu iska furfurmay uu iska bilaabmay runtii waxaan halkan shukri gaara uga celinayaa oo hawshii weyneed ku dhacday anagu nasiib waxaan helay bilowgii waxaan u maleynayaa khayrkana cidda bilowdaba ka sii ajar badan cidda dhamaysa laakiin hawsha aad u weyn waxay ku dhacday Jimciya Nuur al-Huda iyo Dr. Nimco Xaaji Abi Bakar ilaahay khayr ha siiyo oo mar walba khayrka u taagan waxa weeyaan anagu fikirkii bilowgii baan lahayn maadaama uu 7 sano macadkan yahay qabyo qasab bay ahayd in la bilaabo ciduuni bilowdo deetana la dhameeyo laakiin isaga oo markaa hawshiisu ay in badan ka hadhay ayaa waxaan ku wareejiyay anigu markaan dhoofayay Dr. Nimco iyo Jimciyada Huda ilaahay khayr badan ha siiyo maantana waxaan u maleynayaa waa meel aad loogu farxo waxaan idinku waaninayaa iskuulada kale ee lagu dhigto cilmi maadigaba ilaa xad baa la qurxiyaa oo la wanaajiyaa anagu se halkan ballan rabbi waxaan ku qaadnay bay ahayd inay noqoto meesha ugu qurux badan ee qur'aan lagu dhigto ilaahayna wuu noo rumeeyay way xaqiiqowday waxaan idin leeyahay damaca idinku yar gaar ahaan reer Boorama cid kale haday idin la joogto bardo macna male waa walaalaheen islaama laakiin damaca aad idinku yar insaankuna waa inuu damac yeesho si uu wax u fuliyo marka waxaan idin leeyahay waxaan idin kaga tagayaa inaad damac yeelataan adigoon waxba haynin haddaad ilaahay la kaashatay inaad wax qabato waad qaban doontaa waxa inoogu xigay iminka insha Allahu Raxmaan hawluhu halkaas kumay dhamaanin hawlo badan baa inoo dhiman waxaan jecelahay in laga wada qayb galo oo anigu aan ballan rabbi ku qaaday haddana inaan la qabto intii itaalka iyo haday cod tahay iyo haday mataqaan ummad fariin loo diro tahayba iyo hadii magaalada wax laga guro tahayba inankayga oo jaarka xafiiska iyaga Tawfiiq waa maxaahadeen sheekh naanaysta ma jecli inaan idhaahdo sheekh Cabdiraxmaan kulay magac kale aad idinku taqaanin dhulkii waa loo iibiyay dhismihii baa hadhay waxaan qabaa magaalada Boorama siday u dhan tahay inta ku nool maaha qabiil anu kama hadlayo islaam baan ka hadlayaa inta ku nool by $1 hadaan bixino markaska waan dhisaynaa ama macadkaas waan dhisi karaynaa waa wax aad u dhibiya marka waxaan idin leeyahay hooyo Nuur al-Ilmi baa ku sii xigta anagoo Tawfiiqa ku sii xigno runtii rabna Boorama horta waxaan ka rabnaa meel waqfi inayna siiyaan waxaan u maleynayaa intiina joogta inaad sii gudbin doontaan inaanu anaguna helo dhul waqfiya oo aan dhisano runtii waa la ii ballan qaaday in la ii dhiso laakiin dhulkii wali ma hayo ilaahay ku caabudayo idan macahadkani maadaama uu yahay macahad litasxiix tilaawa waxa kowka cidda u baahan inay ummadoo dhan tahay waxa si gaara ugu sii baahan ninkii u tasaduray ama u fadhiistay inuu dadka quraanka baro waxaana ka faa'iideysanaya ninka ilaahay subxaanahu wa ta'ala raba iyo daarta aakhiro oo markaas kibirkana iska ilaalinaya waxaad ogsoontiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa fawqa kulli dhi ilmin alim haddii aad in aqoon u leedahay qofkaaga si aqoon badan baa jira waxaad garanaysaan nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam Ramadaan kasta oo yimaadaba quraanka yaa la akhriin jiray macallinkiisii baray Soomaa limaada sirta ku jirta maxay tahay sir baa ku jirta
ugu dambayntii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ramadaankii ugu dambeeyey 2 jeer ayaa uu rasuulka u cardiyay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka sir baa ku jirta cabdullaahi ibnu mascuud ood garanaysaan oo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yaqra'a alqur'aana qofka jeclaada inuu qur-aanka u akhriyo sidii isagoo la soo dejo qoyan ha u akhriyo falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin maxaa laga hayaa muxuu yidhi hadda ninkuu nebigu sidaa u taskiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan rasuulka afkiisa ka qaatay 2 suuradood haddii aan ogahay buu yidhi nin iiga aqoon badan inuu jiro qur-aanka oo geela loo garaaco macnaha geel loo raaco waan tegi lahaa buu yidhi maxaa meesha ku jira ma siru fi dalik wuxuu leeyahay ilaa imika qur-aanka cidda aan arko inay iga taqaano waan ka baranaya walidaalika waxaa la rabaa qofkii mucallimin qur-aanka ahaa ee bartay inaanu odhan halkaas igu joogtaa kadibna intuu madrasad furto igama dambaysa inuu yidhaahdo maaha inuu bartaa laga rabaa qur-aankii sheekh xuseen xafidahu llahu tacala ood garanaysaan intuu soo saaray arday markuu kuway tagay muu odhan anigaaba arday soo saaray waxba baran maayo ijaazada wuxuu ka soo qaatay allahuma salli calaa maxamed muxuu ahaa culammada qur-aanka ee kuweyt joogta qaar ka miduu ka soo qaatay intaana wuxuu isku dayay marba marka ka dambaysa cid ka sanad sarraysa ama qur-aankii uga sii aqoon badan inuu wax ka qaato الشيخ محمد الأهدل حفظه الله تعالى oo ilaahay ku anfacay hargeysa in badan oo dadkii quraankii u saxay shalay toolaan soo raacnay wuxuu ii sheegay inuu fursad u helay Dr. Ayman inuu ku dul akhriyo quraanka qayb kamida baladada geesta waa imaam fi القراءات العشر imaam wa muqri oo in fara badan u faa'iideeyay ilaa imikana faa'iideynayo lagu dul akhriyo qiraa'aadka 10ka lagu dul akhriyaa waxa lagu akhriyaa muxuu hay'ada fardiya waxa lagu akhriyaa jamc baa lagu akhriyaa mudarris bu qiraa'aadka ka yahay heerkaas uu ka joogaa muu oran waxba kaama dhinna wuxuu intaaba waxaan daba joogay inaan Dr. Ayman la hadlo idhaahdo aan kugu dul akhriyo quraanka hadda waxaan u jeedaa hadda ma garanaysaan yaan u jeedaa hadalkaasi u jeedaa waa dadka quraanka madarista ay soo jeeda waa ducadii runtii waxyaabo fara badan baan faa'iideysanay oo noo iftiimay waxyaabo badan oo runtii culays badan nagu hayeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dul qaaday waxaan mar walba ku mahadinaa markaa ilaahay cid kastoo markaa qur-aanka u gargaarta ama se ku dadaashana waxay helaysaa markaa nasri badan iyo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa ayay meel dhow ka helaysaa waxaan leeyahay markaa insha allah kullita waa mahadnaq waxaa dadaalka waday suldaan guray oo markaa tawfiiq isaguna markaa ahaa walaalkeen sheekh cabdilaahi xuseen cumar oo ah markaa waxa weeyaan gudoomiyaha hadda jamciyadda nuurul islaam ayaa jamciyad kale runtii raxmo la dhaayada laftigeega aanu samayno laga yaabo in istiibiradeeda meelaha lagu arkay hooyadana qur-aanku ka shaqeynayso dad qurba joogii ay ku midoobeen iyo annagoona ku midownay marka waxaan leeyahay macallimiintayda jazaakum allahu khayran dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran kullita in qiraa'aadkii la bartana qur-aankiina dib loo saxo waxaan rajeynaya insha allah inaan ardayda ugu horeysa aanu ka mid noqono haddii ilaha idhaahdo laakiin waxaa leeyahay sheekh kasta maqaal buu leeyaho de waxaan maanta u taagannahay maxad imaam shaatibi furitaankiisi marka ikhwaani fillah aasaaskii maxadka sheekha ilaahay khayra siiyo ayaa aasaasay meel la soo gaadhsiiyey oo dhammaystiray laakiin qabyuu noqday marka waxaa ka wada shayga qiimaha leh dadku ma ogaadaan iyo nicmada ay ku jiraan laakiin markay ka tagaan unbay dareemayaan magaaladeenna ilaa u naxariisto sheekh cabdiraxmaan sheekhi xadiiska waxa weeya intaasoo sannadood buu axaadiista akhriyey laga bilaabo ka ugu hooseeya 40ka ilaa sunanta iyo dhammaan bukhaari iyo muslim wax badan way ka faa'iideysteen laakiin qof kasta oo islaam baraatigi sheekhi tii ilaahay baa ku timid maanta waa la dareemayaa markaa waxa dhiman sheekh xuseen waa nicmo weyn oo ilaahayna siiyey laakiin kuma dareemano horta barakallahu fiikum anagu wali horta arday baan u nahay anagu arday baan nahay ardaydu soo saaranahay ilaa haddana arday baan u nahay waxa magaalada ka dhigaad aragteen ama meel kasta tagaana waa ardaydiisi marka fadliga weyna inta leeg ilaahay baa iskale haddana waxa iskale sheekha ilaahay subhanahu wa ta'ala imika yahaatan ikhwaani mar haday dhamaystirantay
oo sheekha dadaalkiisii iyo intaasoo jamciyada tawfiiq iyo nuur quraan iyo maxaan dhahay hudi iyo doctor nicmo horta hudun bay ku jirtaa iyadu oo doctor nicmo waxay kamid tahay jamciyada huda marka waxa weeyaan intaasoo dadaaloo la sameynayo oo han qaadana waxa weeyaan inaan sheekheena meel fiican u ka soo jeesto alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah runaantii rag badan oo iga mudan baa meeshii jooga sheekh cabdisaaq sancaani sheekh sulaymaan balse ilaahay qadartii bay ku dhacday inaan kelmadda yidhaahdo walaalayaal ilaah baa subxaanahu watacaala mahad iskale isuu keenay madashaan amaba goobtan aadka iyo aadka u qiimaha badan taasi oo maxaan ku yidhahdaa in lagu qurxinayo kalaamu rabbulcaalamiin amaba acdama mucjizaat waxa weeyaan de waa midhahaasi uu bilaabay fadiilatu sheekh allaha u naxariistee sheekh cali suufi saasay u socotaa sheekh xuseen nuur qalinleh waxyaabaha kaloo aadka mucjisada waa waxa weeyaan mar aanu isugu nimidnay teleconference arday aada iyo aada u tiro badan oo dunida dacaladeeda joogta hadday tahay norway hadday sweden tahay hadday US tahay hadday Australia tahay oo gabi ahaanba ardaydaasi ahaayeen ardaydii ka soo baxday madrasadii maxamediya la oran jiray sheekh xuseen uu aasaasay haddana imaam shaadibi isu bedeshay wax ka wanaagsan amaba ka qiimo badan ma jirto khayrukum man tacallama qur'aan wacallamahu waatii ahayd inagu waxaynu qiiminaa walaalayaal jaamacadaha iyo maxaan ku idhahdayay culumta kale maadiga ah laakiin waxaa ka qiimo badan oo marnaba meel aan lala dhigi karaynin waa mataqaanaaye kalaamka allah subxaanahu watacaala oo aynu kor u qaadno taasayna adduunka meel walba ku gaari karnaa hadda kahorba waxaa noo sheegay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi baa wuxuu yidhi markii uu yaraa ayuu wuxuu damcay inuu private school tago oo ingiliishka lagu dhigto sheekh cali suufi baa wuxuu ku yidhi rag badan markii aan anigu qur-aanka bilaabayay xagga ayaa privatekay u leexdeen maantana aniga ayay shaxaadanay hoos joogaan marka kalaamka ilaahay unbaad meel ku gaari kartaaye cabdirashiid oo xaggaa u leexo maasha allah cabdirashiid sheekh cali suufi wuu u leexday maantana waad aragtaan waa sheekha weyne maaragtay gebi ahaan afrika hadday noqoto ama soomaaliya hadday noqoto dee intuba way ku faanaan sheekhaasi marka waxaan mataqaanaa khayru kalaama aqala waa dal weeyaan waxaan kusoo koobayaa gebi ahaanba culammadii meesha isugu timiday intii gobolka deganeed iyo intii dibadda ka timidayba ilaahay subxaana watacaala khayr badan ha siiyo inta kasoo qayb gashay aynu walaalayaal isu taagno mar walba oo ardayda qur-aanka dhiganaysa dhar qurux badan oo sharaf leh oo maxaan ku yidhaha aynu ka hormarayno kuwa maadiga dhiganaya insha allah biidni illaahi kariim